Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada qodobada wararka ugu doorka ee Toosno Media. Siciidani oo ka hadlay kiiska wariye 2 bilood ku xirnaa xukuumaddiisa. Dil qorsheysan oo ka dhacay beledweyne wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga haynaa. Maxay dowladda Sweden ka tiri heshiiska Muqdisho? Sacuudiga oo iska fogeysay eedeyn uga timid Mareykanka. Qodobada iyo qodobo dhowr ayaad ku maqli doontaan. Kusoo dhawaada faafahinta wararka. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wariye u xiran laamaha amniga Puntland muddo 2 bilood ah. magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland waxaa ku xiran wariye Kilwa Aadan Faarax oo ay laamaha amnigu xireen, wuxuuna madaxweynaha sheegay in maxkamad la soo taagi doono dhawaan. madaxweyne Siciid Dani oo ka hadlay shir uga furmay Garowe ayaa sheegay in wariyaha uu yahay dambiile isla markaana kiiskii la soo gabangabeyn doono dhawaan. Siciid Dani wuxuu sheegay in wariyaha uu ahaa shakhsi doonaya in si dhaqso leh lagu barto, sidoo kalena wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay inuu xorriyadiisa dib u heli doono. dhanka kale madaxweynaha wuxuu wariyaasha u sheegay inay ilaaliyaan sharciyada dalka si qudhoodu ay u doonayaan in loo ilaaliyo xorriyadooda hadalka. kooxo hubeysan ayaa maanta toogasho ku dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku sugnaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan oo dhaca bartamaha Soomaaliya. wararka ayaa sheegaya in askariga la dilay xilli uu ku sugnaa xoolaha oo ku yaala xaafadda Howlwadaag ee degmadaasi. marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Macalin Cismaan Cabdikariin sida ay inoo xaqiijiyeen ilo dadka deegaanka ah. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in raggii ka dambeeyay dilka ay goobta ka baxsadeen iyaga oo horey u sii qaatay qoriga uu watay askariga. ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goobta gaaray halka uu ka dhacay dilka toogashada ahaa iyaga oo meydkii ka soo qaaday halkaasi. muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa Beledweyne ka dhacay falal liddi ku ah amniga kuwaasi oo u badan dilal qorsheysan, mana jirto wax uu ka qabtay maamulka degmada. wasiirka iskaashiga caalamiga ee dowladda Sweden Per Olsson Frid ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya isagoo soo dhaweeyay heshiiskii ay magaalada Muqdisho ku gaareen dowladda iyo midowga musharaxiinta. Mr. Per Olsson ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku sheegay in dowladdiisu ay si weyn u bogaadinayso heshiiska, isagoo ugu baaqay labada dhinac in sii wadaan wadahadallada socda si xal waara looga gaaro muranka ka taagan doorashooyinka. Sweden waxay soo dhaweynaysaa heshiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, golaha midowga musharaxiinta, madaxweynaha iyo hogaamiyaasha Hirshabelle, Galmudug iyo Banaadir, ayuu yiri wasiirka iskaashiga caalamiga ee Sweden. sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyay waxay ku bogaadinaysaa dhinacyada oo dhan tallaabadan ku aadan xuquuqda dastuuriga ah, badbaadinta muwaadiniinta iyo sii wadista wadahadallada siyaasadeed si loo xaqiijiyo doorashooyinka nabdoon. Sweden ayaa ka mid ah dalalka sida u dhow u taageera Soomaaliya, waxaana dowladda federaalka ay ka caawisaa dhinacyo muhiim ah. si kastaba Soomaaliya ayaa wajahaysa xaalad adag oo kala guur ah, waxaana socda dadaallo xooggan oo ku aadan sidii looga gudbi lahaa marxaladahan loona aadi lahaa doorasho. ugu dambeynna wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada dalka Sacuudiga ayaa jawaab ka bixisay warbixin ka soo baxday sirdoonka Mareykanka oo lagu sheegay in dilkii loo geystay wariye Jamaal Khashoggi uu amray Mohammed bin Salman. wasaaradda ayaa shaaca ka qaaday in eedeynta loo jeediyay amiirka dhaxal sugaha Sacuudiga ay tahay mid la soo dhoodhoobay oo waxba kama jiraan ah. qoraalka wasaaradda arrimaha Sacuudi Arabia ayaa sidoo kale lagu sheegay in warbixinta Mareykanka ay tahay mid gaf ah oo aan sax ahayn. hadalkan ayaa daba socda warbixin uu shaaciyay maamulka madaxweyne Joe Biden taa oo tibaaxaysay in amiirku uu ansixiyay qorshaha in la soo qabto ama la dilo wariye Khashoggi oo 2018 lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. waxaan ogaanay in amiirka dhaxal sugaha Arabia Mohammed bin Salman uu ansixiyay howlgalka Istanbul ee Turkiga si loo soo qabto ama loo dilo wariyaha reer Sacuudi Jamaal Khashoggi ayaa lagu yiri warbixinta Mareykanka. si kastaba waa markii ugu horeysay uu Mareykanka si cad u carabaabo magaca amiirka dhaxal sugaha Mohammed bin Salman ka oo horey u dafiray dilkaasi. guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii aad kala socotaan channelkeena Toosno Media sida ay nabadgelyo.